بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين annagoo guddiga dhaqaale ururinta abaaraha ka dhacay dawladda Puntland isla markaasna dhaqaalaha ay ururiyaan u xil saaran inay qaybiyaan maanta halkan waxaan ku soo gudbinaynaa guud ahaan xisaab xirkii dhaqaalihii soo galay ee guddiga intii ay shaqeynayeen iyo dhaqaalahaasi waxa uu ku baxay iyo waxa hadda u yaala iyo shaqadu sida u socoto hadii Ilaahay idmo guud ahaan guddigaani shaqada wuxuu bilaabay oo fadhigii ugu horeeyay uu yeeshay 7 bishii labaad 2026 maantana taariikhdu waxa weeye 14 bishii saddexaad 2026 guddigu inta uu shaqeynayay dhaqaalaha soo galay guud ahaan oo akoonada guddiga ku dhacay wuxuu dhan yahay 963,400 oo dollar dhibic 75 waa guud ahaan guddigu intuu shaqeynayay waxa soo galay lacag dhan 963,400 dhibic 75 dollar dhaqaalahaas dawladda Puntland waxay ku deeqday dawlad ahaan 220,000 oo dollar dhaqaalaha inta kale soo hadhay oo 743,400 dhibic 75 waxa ku deeqay shirkadaha iyo shacabka ee Puntland jaaliyada dibadda oo dhaqaale yar soo diray iyaguna waa jiraan oo qayb ka dhaqaalahaas guddiga soo galay isla markii dhaqaalihii ugu horeeyay soo galay guddigu wuxuu bilaabay inuu qaybiyo maadaama wadankii baahi adag oo abaareed ay ka jidho ama baahi biyood ha noqoto ama baahi cunto ha noqoto markiiba guddigu wuxuu bilaabay dhaqaalahaas inuu qaybiyo wuxuuna ku hormaray biyaha oo waliba dhowr fays ahaa guddigu guud ahaan wuxuu qaybiyay 4,320 booyadood oo biyo ayaa guddigu qaybiyay lacagta guddigu uu ku bixiyay biyahaas waxa weeye 345,900 oo dollar 345,900 oo dollar ayaa guddigu ku bixiyay biyaha dhan 4,320 booyadood sidoo kale guddigu wuxuu dayac tiray ama si dhameystiran u dayac tiray 13 ceel oo kamid ah ceelasha Puntland dhaqaalaha ceelasha ku baxay waa ceelasha riiga oo xooluhu ay ka cabaan oo kuwa loogu baahi badan yahay oo daruuriga waxa ku baxay ceelashaas 64,123 dollar guddigu wuxuu iibiyay raashin 5,000 oo qoys loo diyaariyay ayuu iibiyay raashinkaas iyo nooligiisii iyo warbaahinta taqriiban waxa ku baxay lacag dhan 173,424 waa raashinka 5,000 oo qoys iyo nooligiisii oo gobollo badan oo kala duwan baa la geynayay iyo warbaahin ayaa guddigu isticmaalayay marar badan dhaqaalaha ku baxay wuxuu isku yahay 173,424 dhibic 75 raashinkaasi wuxuu ka koobnaa guddiga ay bixiyeen oo 5,000 oo qoys walba la siiyay 25 kilogram oo bur 25 kilogram oo sonkor caagad saliid 2 kilogram oo timir mararka qaarkood waxa la isweydiinayay war bariiskii aaway dad baa lahaa bariiskii guddigu ma iyaga la haray guddigu bariis ma gadin maxaa yeelay bariis maxaa lagu iidaantaa bariis aanu rabaa iidaan buu rabaa dadkan dad abaar heshay way wax ku iidaantaan ma haystaan laakiin burka waxa loogu dooray iyo sonkorta burka waa iska xabaaranayaan isagoo sidiisay biyaha ku liqliqayaan ama shaahi ku cabayaan sonkortana waynu ognahay tamarta koowaad rimiga isticmaalaan waqtigan oo kale sonkorta way sidaas marka ayaa guddigu sonkortaas iyo burka guddigu ugu dooray isagoo ugu daray 2 kiilo qoys walba 2 kilogram oo timir iyo caagad saliid guud ahaan lacagtii guddiga soo gashay oo ahayd 963,475 guddiga hadda waxa u yaala oo u haray 379,953 dhaqaalaha guddigu hadda uu bixiyay oo ka kooban biyaha
raashinka 5,000 oo qoys ceelasha la dayactiray iyo kharashaad ka baxay waxay isku noqdeen 583,447.75 dhaqaalaha guddigu hadda uu bixiyay oo ka baxay waxyaalaha soo sheegay la soo sheegay ku baxay waa 583,447.75 guddigana maanta waxa uu yaala 379,953 guddigu lacagtu qabtay sidaad aragtaan halkii milyan 36,000 taqriiban baa ka dhiman iyadana waxaan rajaynaynaa maanta iyo bari inay soo xirooto oo ballanqaadiyo ayaan sugaynaa insha Allah taala guddigu wuxuu wax gaarsiiyay gobolada Puntland oo dhan guddigu wuxuu wax gaarsiiyay gobolka Raas Casayr gobolka Bari gobolka Karkaar gobolka Highland gobolka Sanaag gobolka Nugaal gobolka Mudug gobolka Sool iyo gobolka Cayn dhammaan goboladaas guddigu raashinka aan soo sheegnay iyo biyaha aan soo sheegnay qolo walba iyadoo tixgelin la siinayo ayay guddigu gaarsiiyeen waxaan kaloo rabaa inaan xuso shirkadaha waaweyn oo Puntland ka shaqeeya waynu ognahay shirkad walba lacag badan bay ku deeqday oo iyagu warbaahinta ay geliyeen laakiin lacagtaas guddigan ma soo wada gaarin mar kale ayaan cadaynaynaa waxa mar badan baa la isweydiiyay lacagta shirkaduhu sheegeen iyo lacagta guddigu ay sheegeen waa kala duwan tahay shirkadda Golis oo lacagta ugu badan bixisay anaga guddi ahaan sidii maanta baan sheegnay $150,000 ayaa naga soo gaadhay shirkadda Dahabshiil guddiga waxa ka soo gaaray lacag badan bay bixiyeen oo wadankan ugu deeqeen laakiin 100,000 baa ka soo gaaray shirkadda Amal iyaguna lacag badan bay bixiyeen laakiin guddiga waxay ku soo wareejiyeen lacag $60,000 ah sidoo kale Tawakkal Group iyaguna guddiga waxay ku soo wareejiyeen lacag $40,000 ah inkastoo mar hore ay jidhay lacag yar oo ay bixiyeen marka lacagta sidaas ayaa shirkaduhuna lacagta ay guddiga u soo gaarsiiyeen goobahaas aan sheegnay ayaana dhaqaalaha la gaarsiiyay lacagta inta hadda taala guddiga u taala hadduu u fadhiyaa inuu qaybiyo lacagta haddii la qaybiyana haddii wax kale guddiga gacantiisa ku hareeya ma jiraan waxna lama hayn karo maxaa yeelay habaar haraad aad iyo aad u daran baa jira gaaja jidha culays baa jidha $1 guddigu hadduu soo galo waxay jecel yihiin markaba inay gaarsiiyaan waa kuwa kan dadkii gobolada ka socday oo gobolada gaarsiinayay dhammaan way taagan yihiin guddigu wuxuu u shaqeeyaa guddiga sare waa guddiga hadda halkan taagan guddiga waxa la shaqeeya gobolada gobol walba guddi buu leeyahay waliba nadiif ah oo la xulay oo la hubo haddana gobol walba waxa laga sii xulay degmo walba waxa laga sii xulay guddi iyaguna gaar ah oo degmada wax la gaarsiiyo u sii qaybiya xubnaha guddiga ka tirsan oo gobolada u qaabilsan waxa ay ku amran yihiin degmo walba waxay gaarsiiyeen inay dul istaagaan oo ay ka warhayaan sida loo qaybin inay ka warhayaan guddigaas ayaa u xilsaaran marka kalsooni badan ayaan ka qabnaa wixii guddigu qaybiyay dadkii u baahnaa oo baahida qabay inay gaarsiiyaan teeda kale wadanka abaartu waa caam sida la og yahay 5,000 oo qoys iyo biyo maxaan ku yiraahdaa dhowr kuna iyo kuma filla waxay ka gaaraan waa in yar waxay ka gaaraan halkaas marka waxa garanaysa waa dhici ka meelaha qaar kood inaan wax la gaarsiin waxaan dad lagu qiyaasay 1.3 milyan ayaa abaartu ay saameysay marka anagu waxaanu tixgelinaynaa hadda meesha ugu daran oo aad looga soo qayliyo ayaa tixgelinta ayaan wax ku qaybinaynay marka wax lagu ilaahay baa wax gaarsiin kara subhanahu wa ta'ala dhammaan dadkii dhaqaalaha soo diray oo mahad celinayna waxaan leenahay jazaakumullahu khayran gudaha iyo dibadaba ilaahay idinka ajar siiyo waxaad la baxdeen wax ka khayr badan ilaahay idinku bedelo subhanahu wa ta'ala ilaahay idinku barakeeyo waad aragtaan waqtigii ugu adkaa oo abaarta ayaa hadda la maraya ilaahay fadligiisa waa sugaynaa bishaan maarso inta lagu jiro ilaahay roob ina siiyo ilaahayna waa ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala laakiin xaaladdu waa adag tahay markale ayaan baaq waxaan ugu diraynaa dadkii wax la bixi jiray waliba jaaliyadihii wali waa noo dhimayeen wax noo soo diray ashxaas way ilaahay hadda dibadda marka la yiraahdo Mareykan waa dhiman tahay Canada waa dhiman tahay Ingiriisku waa dhiman yahay Scandinavian Europe dhan baa dhiman Australia ayaa noo dhiman maxaan ku raahdaa Africa ayaa dhiman dhammaan baaqayagu cidu gaarayo dhan waxaan leenahay walaalayaal xaaladdu waa adag tahay si degdeg ah dadkan walaalihiina oo baahan
ومساكينتا واحد أهلي كدان سوى قارسية وبالله توفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.